ugu horreyn dhammaantiin ba aad baan idiin salaamay idam alle muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa qaabka loo sameeyo droplet sidoo kalena qaabka loo sameeyo alaab mustacaanukan inverter recharging inagoo isticmaalayna batch ama filters kala duwan ama waxyaabo iyagu iskood u diyaarsan senka u sameyno waxaan soo furan doonaa markaa file deetana open baan ku dhufan doonaa deetana waxaan dooran doonaa sawirkaas ayaan soo dooran doonaa sawirkani markiisa hore waa sawir row ah deetana waxaan ku sameyn doonaa dayactir batchku waxyaabo la diyaariyey ama filterku waxyaabo la diyaariyey hadda haddaynu filter diyaarino tusaale fudud sawirkan rabnaa inaynu dayactir ku sameyno sawirka markaan rabnaa inaynu dayactir ku sameyno waxaan tegi doonaa image deetana waxaan dooran doonaa adjustment deetana waxaan kasii dooran doonaa HUE saturation ayaad ku dhufanaysaa deetana waxaan ka dooran doonaa qaybta redka waxaan rabnaa tusaale wejiga oo kale skinkiisaas oo kale waa casaankii baad markaa dooranaysa markaa mid kastaba ka u eeg ayaa target ka dhiganaysaa kaasayn dooranana casaanka deetana casaanka xoogaa baan ku dari waxaad arkaysaa in wejigii soo yar iftiimay okay casaan yar soo galay intana xoogaa lightness baan ku daraya iftiimin baan ku daraya okay intaasaan u daynayaa intaa markaan u dayo iska soo xidhaya qaybta markaan iska soo xidho waxaad tegayaa filter deetana waxaad kasii dooran doonta camera raw filter ayaad kasii dooranaysaa waaye qaybta markaan ka soo dooranno aynu soo cuganno waxaa inoo soo baxaya inbox kana inoo soo baxaya inboxkan markuu inoo soo baxo allahu mustacaan karim qaybta ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa basigaasina soo furi basiga markaynu soo furno hoos baynu soconayna exposureka isaga uma baahnin contrastkaasina xoogaa ku daraynaa allahu mustacaan karim blackana dharkiisaynu xoogaa soo muujinaynaa white oo iftiimin ana xoogaa baynu isagana ku daraynaa intaa markaynu sameyno waayahay qaybta way iska soo xidhi qaybta waan soo xidhi qaybta markaan soo xidhna waxaad tegi doonaa detailskana xoogaa isaga nose reduction ayaad ku daraysaa in yarba nose reduction ayaad siinaysaa intaa markaynu siino hoos baynu soconaynaa waxaan soo xisaynaa color gradientkaas ku dhufanaysaa color gradientkaasi wuxuu tilmaamayaa waxa weeye colorka uu sawirkaagu noqon doono haddaan qaybtan siyamka aan u durkiyo saasuu sawirkaygu u noqday waayahay qaabkaasuu noqday sawirada kalarada waa badan yihiin kalarka rabtid baad ogan kartaa walow uu kalarka siyamka uu ugu wanaagsan yahay waayahay intaasaan u daynayaa intaa markaan u dayayo waayahay kor baan u soconayaa keliya waxaan kusoo darsanayaa basicgii baan tegayaa saturation iyo vibrancy ayaan kusoo darsanaya saturationkana xoogaa ayaan kusoo dari vibrancygana si lamida xoogaa ayaan kusoo daraya sawirkii hadda wuxuu noqday qaabkaas ayuu ekaaday okay baan siinaya kaas waxaan leenahay marka inaga samaysanay oo kaa inagaa samaynay haddaba waxaan rabnaa mid diyaarsan oo isagu samaysan inaynu aragno oo sidan sawirkan hadda u qurxinay inuugu qurxinaya kaasoo kale markaan rabnaa inaynu sameyno waxaan leeyahay control plus z ayaan ku dhufanayaa sawirkii originalkiisi buu kusoo noqday waxaan tegayaa markaa filter ayaad ku dhufanaysaa filter markaad dooratid camera raw filterki ayaad mar labaad aad dib ugu celinaysaa balse hadda isticmaali mayno qaybtii scaleka aynu badinaynay yareynaynay laakiin waxaan isticmaali doonaa waxaad ku dhufanaysaa saddexdaa menu markaad ku dhufatid waxaad leedahay halkay ku qorantay lower setting ayaad ku dhufanaysaa deetana waayahay halka waxaa kugu diyaarsan batchka koobaad haddaan ku dhufto kaa koobaad haddaan ku dhufto ama filterka koobaad haddaan ku dhufto oo presetka ah waayahay qaabkaasuu kugu edit karaanaya isaga automation kugu edit karaanaya haddaan kan ku dhufto oo haddana mid kale doono oo kan ku sii xiga aan ku dhufto aan open siiyo isaguna qaabkaasuu kugu iskal karaanaya oo intii cabiradii aynu hadda soo xusayno oo kale unbaa la xusay wax kale lama sameyn intaasunbaa wax kabedel lagu soo sameeyey marka kaasa waxaa loo yaqaanaa batch waxaa loo yaqaanaa batch haddaad rabtid batch inaad adigu samaysatidna waxaad leedahay create a preset ayaad siinaysaa ama create ayaad ku dhufanaysaa deetana markaad qaybahan skillkiisa aad xustid toos bay kugu save karaynaysaa intaa markaan ka nimaadno kaas qaybtaasun baan ku dhufanay deetana load bayn nidhi habakii aad rabtid in ka bedelo kan kusii dhufanoon open siinona qaabkaasu kana inugu ekaanay marka kuwaasa waxaa loo yaqaana preset ayaa loo yaqaanaa ama batch ama filtero diyaarsan weeye kaasaan u daynaya okay baan siinaya okay markaan siiyo haddana waxaan ku dhufanaya qaybtaasan okay kusii dhufanaya saasuu marka sawirkii iigu edit karaanaya waxaan filayaa inaad qaybtaa fahanteen
intaa markay ka nimaadno waxaan u iman doonaa qaybta kale waxaa loo yaqaanaa droplet weeyaan waxaan rabnaa dhowr sawir inaynu hal mar aynu edit garayno ama aynu wax ka bedel ku samayno waxaan soo furanayaa markaa sawir ka mid ah sawirada aan tusaale u soo qaadanaya tusaale sawirkan aan soo furayaa sawirkan aan tusaale u soo qaadanaya waxaan rabaa sawirkan inuu tusaale igu noqdo sawirada kale san kan u edit gareeyo inay kuwa kalena ay igu edit gareysmaan marka kanal aynu ka tusaale qaadanayna waayahay kan si aynu ka dhignayn kuwa kalena ay noqonayaan si aynu markaa u samayno kuwii kale aynu u dabaqno kan waa inaynu duubnaa marka waxa weeye stebiska aan raacayno waxaan tegi doonaa action si aynu duubno windows baad tegi doontaa windows markaad tegtid oo qaybta menuga deetana waxaad ka dooran doontaa qaybta ay ku qoran tahay action markaad ku dhufatid ood actionka ku dhufatid waxaad samaysan doontaa qaybta ugu horeysa waxa loo yaqaano preset ayaad samaysan doontaa ama set ayaad samaysan doontaa ama folderka ayaan samaysan doonaa folderkana waxaan ula bixi doonaa retouch ayaan u bixin doonaa waayahay retouch markaan ku dhufano deetana okay ayaa siinay folderkii halkaasaa laygu sameeyey folderkii marka halkaa laygu sameeyey waxaan samayn doonaa waxa loo yaqaana new action qaybta ku xigta ayaan ku dhufanayaa waxaan leeyahay amg ayaan siinayaa deetana record ayaan leeyahay hadda every single step aan qaado oo dhan waa la record garaynaya oo waxaa lagu saleynaya oo lagu dabaqaya sawirada dambe stebiska aan raacno oo dhan waayahay markaa waynu edit garaynaynaa habba seen u edit garayno laba option bay noo bannaan inaynu batch diyaarsan aynu isticmaalno iyo inaynu inagu batch diyaarino ama filter aynu diyaarino markaa kuwa diyaarsan baan iska soo qaadan doonaa seen u soo qaadanay waxaan tegi doonaa qaybta filter ay ku qoran tahay deetana waxaan dooran doonay camera raw filter qaybta ay ku qoran tahay intaa markayn doorano waxaa noo soo baxayay inboxki markuu inoo soo baxo waxaan soo saaraynaa batchki baan soo saaraynaa allahu mustacaan alkariim load city baan leeyahay presetkan koowaad ama filterka koowaad ayaad ku dhufanaysaa isagaan basaaraya isaga markaan saaro okay baan siinaya marka saasuu marka uu ku dabaqmay qaybta koowaad waxaa lay diiwaan geliyey oo lay safe gareeyey waxa weeyaan oo lay duubay camera raw filterkii waayo qaybta markaan idhaahdo waxaan rabaa inaan tusaale fudud looga soo saarto file baan tegayaa waxaan leeyahay place link waayahay waxaan rabaa brand inaan soo saarto waayahay okay brandkaasaan soo saaraya kaas ayaan ku dhufanayaa qobe place link ayaan leeyahay way siiskiisaan soo yareynayaa siiskiisa markaan soo yareeyo qaybtaasaan dhigayaa markaasaan u deynayaa okay ayaan siinaya qaybtaana saasaa laygu save garaynaya oo saasaa laygu duubay intaa markaan ka imaado waxaan tegayaa markaa filekan ayaan soo save garaysanayaa save as copy ayaad ku dhufanaysaa save as copy markaad ku dhufatid waxaad dooranaysaa after deetana halkan waxaad kasii dooran doontaa gbg oo folder unbaad cusub unbaad samaysanaysaa folderka cusub ayaad waxa weye sawirada dhiganaysaa marka hadhow automation folderka aad dooratay ood kii hore aan kan ku save garayna ayaa kuwa dambe oo dhan lagu dabaqi doonaa intaa markaynaano okay ayaan siinaynaa waayahay okay markaan siino saasuu markaa nugu save gareeyay qaybtan aan soo xiri deetana waxaan leeyahay no ayaan ku dhufanaya qaybtan saasuu nagu save garanaya halkaa qaybta photoshopka iconkaasaan ku dhufanaya iconka markaan ku dhufto stop ayaan dooranaya waa joojinaya markaan joojiyo file baan tegayaa automate ayaa dooranaysaa deetana waxaad ku dhufanaysaa create drop let labadanba waa inaad tigta kuu saarnaata labadan hooseba waa inaad tigta soo saartaa deetana waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku qoran tahay choose waayahay qaybtan desktopkaan dhigayaa desktopka markaan dhigo magac baan la bixi doonaa droplet waayahay filekaasaa markaa waa save garaysanaya waayahay anigu hore ugu jiray yes baa ku dhufanaya marka okay baa leeyahay waayo desktopkii baan tegayay waxaa laga sameeyey markaa fileka noocaasa oo qaabka iconkiisa u yaalo ayaa lii sameeyey waayo halkan waxaan soo qaadanayaa markaa sawiradii aan rabay inaan ku sameeyo halka mar wada edit gareeyo sawiradii waa kuwan intaasaan rabaa inuu hal mar wada edit gareeyo marka intaasaad soo qaadanaysaa waxaad leedahay control plus c deetana desktopkii baan tegaya waayahay okay control plus c ayaan leeyahay deetana waxaan tegayaa desktopkii control plus v ayaad siinaysaa desktopkii waa halkan waa kuwa halkan inoo soo galay isagaan qaadaya saasaan u dulgeynayay oo kusii daynayay marka isaga mid kastaba wuu edit garaynayaa deetana wuu save garaynaya
saasuu marka isugu xijinaya waqti yar iyo time yar ayuu dhammaantoodba ku wada edit karaynaya. Saan u soo ogaano ilaa waxaan nidhi marka sawir walba markaad dhamaysid waa inaad xidhaa. Waxaan tegi doonaa folderkii baan ka ogaanaynaa folderkii after. Waayo folderkii ayay dhammaantoodba ku wada jiraan iyagoo wada edit garaysan oo qaabkan loo edit gareeyay. Waayahay loogadiina la saaray kan waa kaa kana waa kaa kana sidoo kale kaana sidoo kale marka mid kastaba saas loo edit gareeyay. Waxaan filayaa inaad fahanteen insha Allah saas loo sameeyo. Assalaamu calaykum.